بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ما تيتay maaragtay salaasa oo joogno magaalada Orleans maanta waxa la kulanay odayaasha maaragtay reer Orleans ee dadka soo dhaweeya ee maaragtay samafala ah ku soo dhaw Gel TV waad maasantay Gel TV waa salaamaya inaan soo boqotayna waa ku maasantiin magaaladan Orleans waa magaalo aad u qadiimi oo marka qaar waxa la yiraahdaa waxa looga tirin jiray waddanka Faransiiska gobolkan waxa lagu magacaabaa Center Val de Loire waana gobolkii wabiyada bay ka dhigan tahay marka waa magaalo jawigeedu aad isaga qurux badan yahay waa magaalo Soomaali badan degan tahay oo ay ka shaqeyso inta badan qiyaamahaana waa dad isku xidhan oo aad u kooban baa degan marka magaaladan waa magaalo fiican oo taariikhiya waddanka Faransiiskana taariikh ku leh haddana ma sha Allah bal waxaad ka warataa bulshadeena Soomaaliyeed imika maaragtay meesha waa meel degan waxa la yiraahdaa waa xundurtii maaragtay Faransiiska Liqueur de France baa la yiraahdaa bal ka war halka jawiga iyo nolosha iyo maaragtay والله nolosha guud ee Faransiisku bay kala mid tahay laakiin horta waa xudurta waddanka waa center baa la yiraahdaa waa gobolkii Faransiiska oo dhan qaybinaya weeye halkan waxa ku yaala meeli ugu logistiga ugu weyn ee Faransiiska halkan ay qaybisa wax bashar garaysa ma sha Allah marka dhalinyarada Soomaaliyeed joogta waa dhalinyaro aan bil amal hayn way wada shaqeeyaan majority ma sha Allah dadkuna inta badan iskuma arko centerada iyo waxaas dadku wadad wada iska garab rarataay oo iska wada shaqeystaan dhalinyarada imika joogtaano inkastoo walow ay mar kasta yimaadaan dhalinyaro cusub ma sha Allah halka meel kastoo la yimaado maartay waxa lagu guuleystaa maartay midnimo iyo organisation baa lagu guuleystaa wadanada waxa ka taliya wax la yiraahdo urur association baa ka taliya waxa darkaysid maartay wadanka ka taliya ee loo tagayo qof kulku jeed yahay waa urur ayaa kula doonay xaqaaga Soomaalida waddankan aan joogno ee Orleans ee France oo dhan joogno inuu Orleans ku noolnahay oo Ilaahayna weydiinaya urur ma leeyihiin Soomaaliyeed oo maaragtay organisation ma leeyihiin niyo wallahi may hadda urur ma laha taagan oo jira laakiinse hadda ka hor intaan soo degin ka hor urur bay lahaan jireen oo aan markii ugu dabayaaqadii uu si baabaayaan la kulmay niyo si kale oo ururkaasi uu guul dareysane waxa dhacday wax ka shaqeeyay la waayo dadku dad iska shaqaalaaba iska badnaayeen qof waliba danihiisa iyo familkiisa iyo arrimihiisa uu maaragtay u tahli waayay inuu ka shaqeeyo arrimadan guud laakiin se insha Allah imika waxaan rajeynayaa in urur adag oo agab adag ku taagan uu ka bilaami doono aagan ma sha Allah may anigu maaragtay alxamdulillah waa meel fiican intaan arkay alxamdulillah waana u duceynayaa waxaan rajeynayaa maaragtay sanadka ay tuulan bilaabin inaan maaragtay Soomaali intaan isku nimaadno oo tashanno waxa la yiri 5 nin oo mala kaliya tan shisha kale leeyihiin bal 5 nin oo 5 bal la shisha leeyihiin waddankan wadan fiican oo soo dhaweeyay haddaan nahay Afrikaan dhibaato kama sheeganayno oo wadan fiican Ilaahay nagu nabad yeelo meeshan joogno amiin dhamaanteen France oo dhan Ilaahay ku nabad yeelo muslimka iyo Soomaali gaar ahaan kolka waa ka muuqanaynaa ama waxa la yiraahdaa ka maqnaa ama ka muuqo warka ku dhan ma sha Allah aad baad magaalada maanta soo bandhigno waxaan jecelahay TV-gina inuu duubo magaalada hareeraheeda iyo quruxdeeda iyo maaragtay wixii maaragtay macluumaad ma sha Allah adeero ninkan ugu yar ninkan ugu yar baan maaragtay ka helay ayna kaygo kala daa ma sha Allah mid yar laba ku darso magacaaba lagu dhaaf